wax walba oo dunida korkeeda ahaaday waa lacag markii laga reebo nolosha Eebba noo hibeeyay. Noloshuna waa nimcooyinka ugu waaweyn ee Eebba nagu deeqay, waxaana nagu waajibay inaan ilaalino. Laakiin qadarta iyo geeridu kuma moogo meel kastoo ahaataba. Waxaa maanta idiin soo bandhigi doonaa dad u badbaaday si la yaab leh kuwaasoo khatar ugu jira inay geeriyoodaan. Balse intaan muuqaalka bilaabin subscribe samee si muuqaalada xiga kuu soo gaaraan. Muuqaalkan yar ayaa ah mid aad u la yaab badan. Cunugan ayaa geerida ugu badbaaday si aan la rumaysan karin. Markii uu ka soo degay baska ayuu wadada orod ku marimaagay. Laakiin maxaa helay? Inta aadan wadada jarin waxaa muhiim ah inaad fiiriso labada dhinac ee wadada. Muuqaalkan ayaana dirsi ka baran karnaa. Gabadhan ayaa waxay eegaysaa hal jiho ama hal dhinac oo kaliya, laakiin dhinaca kale ayaa waxa ugu yimid gaari. Haddii uusan jir lahayn fadliga Ilaahay, waxaa soo gaari lahaa dhib aad u weyn. Carruurta yaryar inay wadada maraan waa mid aamina, laakiin wiilka yar oo ka dambeeyay ayaa halis galay markii uu la kulmay gaari si xooli u socdo, wuxuuna uga badbaaday si dirqi ah. Nin mooto wado ayaa wuxuu ku socday wadada oo aan lahayn meel looga leexdo, balse wuxuu si degdeg ah ula kulmay gaari ku soo wajahan. Laakiin wuxuu sameeyay inuu mootada dhinac u rido, asna uu ka wareego, waana uu ku guuleystay asigoona wax dhib ah aysan soo gaarin. Ninkan ayaa wuxuu ku socdaa laba tareen dhexdooda, asigoona wax dareen ah muujinayn. Dadka qaar ayaa u yeereen, laakiin waxay ogaadeen inuu maqalka wax ugu jiraan. Laakiin si kastay ahaataba waa uu badbaaday. Dadkan ayaa waxay joogaan beeraha dalxiiska loo tago, laakiin waxay hal mar arkeen gaari soo goostay oo ku soo wajahan dhammaantood. Waxaana dhexdooda ahaaday carruur yaryar, laakiin nasiib qofna ma uusan haleelin gaarigii. Muuqaalkan ayaa ka mid ah kuwa ugu la yaabka badan, iyadoo lagu jiro tababarka ciidanka. Mid ka mid ah ciidanka ayaa wuxuu riday xabad, laakiin waxay ka haleeshay koofidii. Arrinka la yaabka leh ayaa ah, askarigii ma uusan muujin wax dareen ah. Qofna ma ogo miyay ka fakatay xabaddu, mise wuxuu ula jeeday inuu na tuso khibradiisa. Wiilkan baaskiilka wado ayaa wadada marayay, laakiin waxaa noo muuqato inuu si tartiib ah u socdo. Waxaana soo hareelay tareen, asigoona ku dhaafay mitir aad u yar. Hooyadan ayaa sii deysay wiilkeedii, asigoona eegayay dhulka hoose, balse wuxuu ku sigtay inuu dhaco haddii aysan hooyadu si degdeg ah u badbaadi lahayn. Kadibna wiilkii yaraa sidaa ayuu u badbaaday. Intaa ha noogu jooga barnaamijkii maanta, tan iyo mar kale inta kulmayno. Wassalaamu calaykum.